waxa uu leeyahay saddex difaac oo kala dambeeya qolkan haddaan xagga idin ka soo tusay dhagax rasaysan waxa ku sii rasaysan ciidamada dawlad goboleedka Puntland waxa ay soo bandhigayaan godad waaweyn oo ay markaasi ka qabsadeen Daesh godadkaas oo muujinaya inay ahaayeen fariisimo muhiim ah oo ay ku jireen kooxda Daesh hase ahaatee gacantooda ka baxay halkan soo socdo waa qolka koowaad qaabkan ayuu dhisan yahay waa soo gali doonaa xagan ka soo gali doonaa laakiin waa dhismihii koowaad dabcan waa meelaha ay siixan jireen amiirada iyo dadka mas'uuliyiinta ah waayahay waxa uu leeyahay saddex difaac oo kala dambeeya qolkan haddaan xagga idin ka soo tusay dhagax rasaysan waxa ku sii rasaysan waxa loo yaqaan dhagxaantan iyo ciidan iyo niis difaaca oo loogu talagalay inay gantaalada celiyaan way kadib kan difaac kale yahay qolka laftirkiisu wuxuu sii leeyahay difaac kale waa u jeedaa kana waa difaac kale oo loogu sii talagalay in waxa loo yaqaano gabaad looga dhigto waa kan qolku markaa halkaas ayay ku dhuuman jireen kooxaha waxa loo yaqaano khawaariista argagixisada Daesh halkan hadii qol amiir uu ahaa qolka kale inuu soo gudbaynaa way kan waxa uu yaalay bag ama biyo bag biyaha halkan uu yaalay kanina waa difaac kale waxa ka soo horeeya difaaci koowaad kii labaad kana waa kii saddexaad afraad ba ku sii xiga markaa oo isaguna uu yahay korna waa difaac ilaahiyana oo dabiici ah oo waa buurtii salkeedii qolkaasi waa qolkii labaad halkana waa qolkii saddexaad halka malaha carruurta seexan jirtay amiir ku xigeenka laga yaabaa isagana waa qol yar oo kanana waa qol yar oo kale waxa seexan jiray malaha qolada kale oo amiir xigeenada ah way soo soco markaa sheekadu intaa way ka ballaaran tahay halkan markaa iyaduna waa argadii baan ku tilmaami karnaa waa barandadii gurigahan waa meeshii ay xogta ku kala qaadanayeen amiirku marka uu banaanka u soo baxo iyo kooxaha khawaariista ah oo la socday waa meelaha ay waxa la yiraahdo ayna oran karno xogta lagu kala qaadan jiray waa